سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته أخيار تيدا قيمة يقدر انت مدن نقل سعود ورباين تورقيس كسيتي وأغسط اللباتن لبدا كوني اللباتن ككسور دوادا قضب حيسالون عاويدين كاي ورباين تورقيس كسيتي حالدا نولوليد ay ku sugan yihiin bulshada barakacayaasha ay ka yimid magaaladii Cundhuufo ayaan warbixin idin ka haynaa sidoo kale ardayda agoomaha ay wax ka barta xaafadda Toome oo ardaydii waalidadooda ku waayay dagaalkii Garbaciise iyo galbeedka gobolka City ayaan iyadana warbixin idin ka haynaa sidoo kale guluufka colaadeed ee kooxda TPLF ay la maagan tahay oo ay digniin ka bixisay dawladuna iyadna warbixin ayaan idin ka haynaa intaasi akhyaaray waa qodobada caawa wararkeena u door karoon haatana ku soo dhawaada iyagii oo fidsan aan ku bilaabay gargaarka gurmadka degdega ee la gaarsiinayo barakacayaasha gobolka City ayaa ilaa hadda la adeegsanayaa cirka mudane xasan reeb oo ah mas'uulka gobolka City u qaabilsan xafiiska maareynta khataraha masiibooyinka oo u waramayay warbaahinta wargeyska City ayaa waxa uu sheegay in 12 jeer ay gaarsiiyeen gurmad degdega barakacayaasha galbeedka gobolka City kuwaasi oo lagu gaarsiinayo diyaaradaha qumaatiga u kaca isla markaasina waxa uu sheegay inay u qorsheysan tahay in gurmadkaasina loo adeegsado gawaari kala duwan si shacabkaasi maadaama ay waxna ka tareen isla markaasina ay ku sugan xaalad aad u adag barakacayaasha ka yimid magaaladii Cundhuufo iyo Danleele ayaa ku sugan goobo bacda oo aan lahayn wax isgaarsiina taasoo ugu biirtay roobka kala duwan halkaasi ka daay oo ilaa hadda gawaarida ayna galayn isla markaasina xaalad ay ku sugan aad u adag tahay waxaana uu sheegay inay hadda u qorsheysan tahay in shacabkaasi lagu gaarsiiyo sidoo kale gawaari maadaama gurmadkan ayna ilaa hadda waxba ka tarayn barakacayaashuna ay tiradoodu kor u sii kacayso lana garanayo tirada rasmiga ee shacabkii ka soo barakacay aagaasi Dhuunyar oo ahayd magaaladii u dambeysay oo toddobaad ka hor lala wareegay isla markaasina shacabkii xoolo dhaqatada iyo kuwii magaaladuba ay daadsayin bacadkaasi aan lahayn wax isgaarsiina roobab kala duwan ay ku soo hagaageen isla warbixinteena caawa ayaan ku guda jirnaaye waxaa laga warqabaa in magaaladii Garbaciise loo geystay xasuuq aad u fara badan isla markaasina lagu laayay waalido iyo sidoo kale dad aad u fara badan oo waxba aan galabsan haddaba arday ka badan ilaa iyo 50 arday oo agooma ah oo ka soo jeeda Garbaciise ayaa waxay wax ku bartaan dugsiga Quraanka Kariimka ee xaafadda Toome degmada Shiniile waxaana ay u baahan yihiin taageero iyo sidoo kale taakulayn ardaydaasi agoomaha ee waalidadooda lagu laayay Garbaciise iyo sidoo kale aagaasi Daymeed haddaba maraanu booqanay dhabe ayaa waxaanu ku garnay xaaladda ay ku sugan yihiin ardaydaasi agoomaha oo halkaasi wax ku barta isla markaasina culimada diinku ay ku baraan waxaana nooga warbixiyay baraha ama macalinka dugsiga Quraanka Kariimka ee ma santiin soo soo booqateen iyo magaranaysa kitaabka Ilaahay daryeerkiisa iyo magaranaysa abaabulkiisa aad u socotaan u daryeeri lahaydeen dadkan meesha ku yimid isku yimid caruurta ah ee meesha ku xireysan ee ku hayno saddexda waqti halkan bay ka cunaan waa dadkii ka soo barakacay magaalada Garbaciise magaranaysa iyo nawaaxiga baadiyaha oo dhan dadkii ka soo barakacay weeyaan quraankii way soo dhameeyeen xagga tuulooyinkii bay ku soo dhameeyeen laakiin intay xiftin lahaayeen ay soddonka isku xiftin lahaayeen kolkay dhameeyeen dhulkii baa laga soo barakacay kadaalika meel ay ku xifdiyaan way waayeen halkan baa lagu soo xireeyay halkan baa imika saddexdii waqti alxamdulillah halkan baa lagu siiyaa waa kuwan dhulka ay galaan magaraysa madrasadu saambay qabiyo uga tahay kalkii hore waxaan ku dhiganaynay geed hoosti laakiin sanadkan alxamdulillah waxaan ku dhiganaa labadan maqsin baan noo taagay oo Ilaahay fadligiisa kitaabka Ilaahay ku keenay tiibaan imika ku dhiganaa caruurta waxa weeyaan waa 42 qof weeyaan waxa meesha ku xireysan ee ku magaranaysa Quraanka ku barta waxay u xireysan yihiin waa muraajaca sanadkan oo magaranaysa iyo sanadkan soo socda ee kaleeyta ay u xireysan yihiin
waxay u gudbayaan cilmiga kolkay halkan ka baxaana cilmiga u gudbayaan halkan bay seexdaan gudoolahoogii wixii oo dhan xaggan bay u yaalaan marra waxaan saddexda waqti xaggan bay ka cunaan khaadimku waxa weeyaan waa sheekh xasan xoosh uu dala jooga iyo sheekh Khaleeto oo asagna u khidmeeya labadaba khidmada u xil saaran laba macallin baa hadana ku dhignaa oo laba gilaas macallinkii kale imika wuxuu tagay dhulkii dagaalada ee dagaal ka socday buu tagay oo xaqii heerihii dhulkii u laamay wali ma soo gaarin annakuna ma garanaysa laba macallin ma ku dhignaa waana laba gilaas axwaasha ardayda waa sida subhanaka allahumma bihamdika assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah sallallahu alayhi wa sallam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam saa macallinka horta nii sheegay weeyaan ciyaalka xaqaas ku dhigan jiray quraanka weeyaan markii dhulkii balaay ay ka dhacdayna halkana maxaan ku lagu soo xiriiriyay halkan bay hurdadooda seexdaan meesha khidmadan idgeyn doona halkan ya loogu khidmeeyaa meel halkana loogu khidmeeyaa xadiidka geerkiisa markaas waxaan joognaa sanadkii hore tay soo galeen iyo 3 bilood oo imika intaasay joogeen intii kolka hore sanadii hore meesha ku xireysnayd way gudubtay xagga cilmiga u gudubtay int kaleeto weeyaan waxa imika hadana halkan ku soo xireyn sidaas weeyaan xaaladooda oo kale ardayda ayaa iyaguna ka wareysanay xaaladda ay ku sugan yihiin oo naga warbixiyay guudaan ardaydan agoomaha sida ay wax u bartaan bismillah alhamdulillah salatu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam magacayga waxa la yiraahdaa Muscab Xaraad Roble waxaan ka soo jeedaa magaalada Garbaciise waxaan ahay dadkii xasuuq ka soo hadhay sidoo kale aabahay iyo carruurteeda halka lagu walaalaayay halkan waxaan ugu xariisan yahay diinta inaan sii faafiyo oo sii dhigto intii hadhana aan sii dhamaystirto waxaan ku xariisan yahay halkan sanadii hore intii ka hadhay sanadii imikaba waxaan ku tala jiraa cimriga in ka hadhay inaan cimriga sii wado ardaduna si fiican bas ka fiican tahay sida macallimiintu ni warrameen quraankana si fiican bay u socdaan sanadan baana inaan ku tala jiraa inaan iska dhameeyo oo iska gabagabeeyo ardado awla jeedin ardaduna fiican tahay quraankana si fiican bay wadaan macallimiintuna si fiican bay noogu wadaan sidoo kale qaar kamid ah hablii halkaasi booqday ayaa iyaguna aad uga qiirooday ardaydan isla markaasina ballan qaaday inay wixii taakulayna ay u gudbinayaan dhammaan muxsiniinta si ardaydaasi loo soo caawiyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacaygu waa muumina ayaan dheere maanta waxaan soo booqanay ciyaalkii barakaca ahaa oo halkan ku xireysan waa toome waa meel miskiid iyo madrasaduna ay ku taalasaan aragno oo xaafadaha maanta la jaaray meel ay kale ay ku wareegaan ayna jirin ciyaalkiisi oo inay jaakaha ay joogaan jaakahaas u munaasib noqotay markii la isla gurfiyay kullayba oo kullay qof xirfada meesha ku qaato unba u wanaagsan annakuna waan dareensanahay hawsha ay ku jiraan intii maanta gacanta ku haysa kulay hadana baahi ma dhamaanayso baahi wax badan baa ka maqan oo korkooga waad ka aragtaa hadana gacantii waa lagu hayaa oo saddexdii waqti waa la siinayaa laakiin hadana wax badan oo ka dhiban baa jirta annakuna inta aan kari karno walaalahayana inaan u sii gudbino yaa waa ciyaalka soo barakacay ee hooyo la joogin ee aabba aan la joogin ee cid la joogan ayna jirin dayaan gacanta lagu soo qabto oo nin walba iska xil saaro yaa raasiti maanta keedaadsanaashaheena iyo maanta cid walba nooga faa'iidaysatay inaan gacan ku dhahaano waxaan doonayaa anigu muumina ahaan si toosan cid wal ay maanta gargaar ma ka ay wadno une waana ka baxay waxweeyaan aniga waxa la yiraahdaa Shukri Aadan Hufan waxaan ka tirsanahay magaalada Dirdhab hooyooyinka magaalada Dirdhab ubadkana soo booqanay maanta maxay ahayday daagunta barakaca ku yimid dhulka inkastoo magaalada joogin hadana kulay duruuf ay tahay hadana kama war hayno waxaan doonaynaa maanta laga bilaabo maanta intaan imanay aan aragnay wixii walaalaha kale inaan ka maqana inaan u sheegno inaan wixii aan tari karno aan tarno maadaama ay dad ubad yar yar oo cid la ku xireysan hooyadoodna hayna la joogin yihiin inaan wixii aan tari karna tarno iyagana ilaahay quraanka u fududeeyo oo tacliintooda ay ku aflaxaan baan ugu ducaynaynaa waa kaad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سادة ركتين وارديدي قربايسة
oo ka soo barakacday barakacii garbacis weeyaan waa agoomay u badan yihiin ilaa hooyo bilaa aabba dadkayga saasay u daadsan yihiin madrasada waad aragtaan waa qabyo saddexda waqti halkan ay galaan halkan bay ka cunaan halkan bay ka cabaan dee hooygoogiiba halkana kolka insha Allah waxaan rajaynaynaa ugu yar yahay ka inuu wiilka yar dhaqalka kale waa ciyaaladeenay ka mid yihiin waa agoomihii kolka waxaan rabnaa inaan hadduu Ilaahay yiraahdo aan isxil qaadno oon maad aragteenay ciyaaladeena naga daadsan ama naga daayacsan aan daayactirano maadaama waa dadkayagii hadduu Ilaahay yiraahdo gargaarkana waa la gaarsiin doonaa rabbina uu maqan yahay waa kaas waxaan odhan lahaa dadkeena ha u soo jeestaan dadka ummadooda u soo jeestaan man odhan lahaa waa kaas وإلينا ترجعون لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا رأيك الذين كفروا وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما guud ahaan ardaydan ayaa waxay hadda ka soo wareegtay xilligii waalidadooda lagu laayay garbaciise muddo hal sano ah waxaana ardaydaasi ay bartaan dugsiga quraanka kariimka isla markaasina waxay u baahan yihiin taakulayn kala duwan iyadoo ciddii muxsin ee wax gaadhsiinaysana lagu soo hagaajin karo maamulaha quraankaasi kariimka ee ardaydaasi waxbara oo telefonkiisu uu yahay إبر 924 isla warbixinteena caawayaan ku guda jirnaaye sida laga warqabo waxa galbeedka gobolka City ka dhacay xasuuqyo kala duwan oo shacabkii deganaa dhunyar iyo daymeedba lagu barakiciyay waxaana shacabkaasi ay daadsan yihiin goobo kala duwan oo aan lahayn wax isgaarsiina isla markaasina waxay u baahan yihiin la gaarsiyo gurmada kala duwan iyadoo laga soo barakiciyay magaalooyinkii hoyga u ahaa taasoo u sii dheertay inay iyagoona haysan meel ay wax ka iibsadaan xoolahoodii iyo hantidoodiina halkii kaga yimiday dagaal laga cabsi qaba inuu ka qarxo waqooyiga Itoobiya wadahadalladii u socday dawladda dhexe ee TPLF ayaa laga dayrinayaa kooxda TPLF ayaa ku doodaysa in dhulka amxaaradu qabsatay galbeedka gacantooda lagu soo celiyo dawladda dhexe oo maanta war-saxaafadeed soo saartay waxay sheegtay in dhulkaasi laga dhigi karin shuruudda wadahadalka waxayna markii u horeysay shaaca ka qaadeen in dhulkaasi kumushinka dib u heshiisiinta iyo kumushinada kale ee dalka lagu xallin doono sida dhulalka kale ee qowmiyaduhu ku muramsan yihiin ila xogogaal ayaa lagu soo waramayaa in maanta kooxda TPLF ay ku soo ruqaasatay deegaanka amxaarada iyo deegaankaasi canfartaba waxayna hub culus ku rakibteen buuraha muhiimka ee horay ugu dagaalamayeen TPLF waxay cadaadis kala kulmaysaa qaybaha kala duwan ee bulshadooda waxayna qurba joogtoodu ku baaqaysaa in wada hadal lala gelin inta uu dhulkaasi maqan yahay Getachew Reda oo afayeenka kooxdaasi ayaa maalmo ka hor ka hadlay oo sheegay in fursadda kaliya dhulkaasi lagu soo celin karo ay tahay qori afkii akhyaarteeda qiimaha iyo qadarinta mudanow sida laga warqabo kooxdii TPLF halka ay maraysaa isla markaasina adi maxaa ku diiday in dhulka ka maqan galbeedka gobolka City-na sidaas oo kale lagu soo celiyo isla markaasina ala inna nasrullahi qariib guusha ayaa dhow fadlan haddaad nagu cusub tahay like iyo subscribe ha naga hilmaamin haddaad nala joogtayna waad ku maasantay la joogistaada tan iyo kulati dambe waxaan idinku dhaafayaa amaana Allah